السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاشين فرتون إيه مركلة كسر هذا جنال كيجا وولاشين فرتون وعاوذين ودلبا عشو كلا نوعة عشاء هلتي يا عشاء ما أعرف قف كي عيل نوع يا مرك ما شاء الله تبارك الله زود هذا ماشى waxaa ku jira malaay iyo salar ah hagaajiyay salarka sida u hagaajiyay kadib saan ku soo baxay salarkii waa arki doontiin marka qaybtan kale oo cashadana idima tusin laakiin waa jabati joma waxa la dhahaa waaye iyo jabatidii marka la soo geli doona insha Allah laakiin caa waxa xooga saar salarkan aan sameeyay iyo malaygan marka intaan qof aa cuni rabo salarkan iyo alaabtaan asxaab kale ka shaqeyn rabto marka walaashii fartuun way soo dhawaada sidaan ku hagaajinay la socdo insha Allah asxaabtayda qaaliga sidaan aan ku bilaabanayna salarkeeni bardii kaarootaas ku soo diray akhyaarey sidaan aan ku bilaabanayna salarkeeni dabka waxa soo saarnay 2 xabo bardaa iyo 1 xabo kaarootaas soo jarnay akhyaarey waxaan ku soo darayaa oo kala digirtaas oo 2 nooc aan ku soo darayaa cabaar karanaya insha Allah waa u jeedin dabka ka dimi way bislaatay u jeedin waa soo miira insha Allah akhyaarey meeshan waxaan ku haysanaa malaay waa u jeedin malaayga boolniska waaye waxaan ku soo diray soya sauce wax yar oo soya sauce dhaladaas soo jeedin soya sauce kaas aan ku daray wax yar si uu ma aragto taste fiican u yeesho waxa kale ku darayaa qaandada sirka ma aragto wax yar oo spices as ku darsada asxaabtayda qaaliga waxa kale ku darayaa wax yar oo cusba ah cusbada xitaa ma ka badinayo waxa kale ku darayaa filfil salarkan ku cuneynaa malaygan marka intaas isku soo hagaajinaya insha Allah waxaan ku soo daray liin dhanaan intaana ku gadgadina si fiican oo marnay gacantayda waa nadiif intaana marmarinaya si fiican oo marnaa dubeena insha Allah akhyaarey bila dabka soo saarna u jeedin intaas yarta saliida isticmaalayna saliida raacina inoo kulaato kadib malaygan ku soo dubaya akhyaartayda qaaliga malayga ku soo ridinayna bismillah yaartayda qaala ku soo noqday dhinaca kale u gudbiyay sida u jeedin dhinacana dhinaca baad ku deena masaanteen marka diyaar waaye laba dhinaca u gudbinayna kadib markuu gudubto ayaan soo gudbinaa akhyaarey diyaar waaye u jeedin malayga aad u jilicsan taas oo kala go'ay waa soo diyaarinaa insha Allah akhyaartayda qaaliga marka waa u jeedin salarkeeni saan ku soo baxay wuu soo qaboobay karootadii iyo baradhadii iyo beeniska isku karnay ma sha Allah aad iyo aad u soo qaboobay waxaan kale ku soo darsanaynaa salarkan diyaarsanaynaa waxaan ku soo darayaa mayonnaise qaandadaas yarta ah oo qaandada yarta ah waxaan ku soo darsanaa saddexdeeda oo mayonnaise ah diyaarey waxaan kale ku soo darayaa filfil ama black pepper sa u taqaanid marka badinayo wax yar aan ku darayaa waxaan kale ku soo miirayaa liin aan ku miirayaa akhyaartayda qaaliga akhyaarey meeshana waxa iigu jira salar iyo qajaar iyo waxa kale iigu jira zucchini iyo broccoli aan saas u soo jarjaray aad u soo yareey waa ku darayaa asagana waxaan idin dhahay akhyaartayda qaaliga salarka ma laga sheekay karo xitaa qofkii is caateynay ma aragteen ma sha Allah tabarakallah waxaan ku dhahay salar ma aragtay aan caadi ahayn meeshan ka soo baxay baradhadii adduunka yaa qofka kaligiis casho u noqon karaa qado u noqon karaa waxa dareemayaa mayonnaise inuu ugu yar yahay qaandada aad u yar marka waa isku qasayna asxaabtayda qaaliga si fiican ayaan isku dhex gelinaynaa asxaabtayda qaaliga waa u jeedin salarkeeni sidaana aad ugu wada qasay ma sha Allah tabarakallah waa salar healthy ah baradhada adduunka qudaar wax ka maqanaa iska yar ما فهمتين قفكي ساعتين حتى انت عشوه كدين كرا
marka sidaana ugu soo qasay insha Allah waxaan ku gedisanayna baaquligan aan ku gedisanayna salar kala noogu jiro waa u jeedin يا ما شاء الله تبارك الله وصل waxaan ku dhahay aad iyo aad u fiican special ah healthy ah ma fahanteen asxaabteyda qaaliga waa u jeedin sidoo ku soo baxay ya ka sheekee sheena yar ya ka sheekee sidoo ku soo baxay khiyaarteyda qaaliga sharafta leh waa u jeedin cashadeena si ku soo baxday oo healthy ahayd waa u jeedin malaaygi kan waa malaaygi intaas waxaa waaye ma aragteen qof iscaateen raba ka shaqeyn rabo alaabta kalena waa tana asxaabta kaloo miiska fadhisa ayagana u jeeda alaabtan jabaati jooma ah dhahaa keeyo qofkii jooga u yaqaanaa dadaa rabaa inay ka shaqeeyaan marka saanay laba casho ku tahay ku diyaarsan tahay alaabtan way ku cunayaan marka khiyaarteyda qaaliga soo dhawaada salarkan aad iyo aad uu healthy u yahay macaan ma laga sheekeyn karo waa walaashin fartuun beelo channelka daa ku cusubtiin subscribe dhaha hadana la joogi jirteen like comment share waa xaqiina waa walaashin fartuun oo idin leh habeen wanaagsan